ماما عاش سودو حلبان سودو أسلام قرن سودو ميريسو سودو وعكسها تاني سودو وأنا السلطان ماذا قلت لك بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وايدن سلام يا صومالية دمانتين وحوجبل qof walbaba mansabka iyo meeqaamka ku fadhiyo shirkan ayaan ku salaamayaa waxa la yiri warka la soo gaagaabiyo laakiin aniga warka ma gaabin karo waxaan rabaa inaad xoogaa igu dartaan waa idin salaamaya marka hore marka xiga waxa weeye waxaan aad ugu faraxsanahay dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada u badan oo halkan ka soo qayb galay rag iyo dumarba bahda saxaafadda dhammaantiin waa idin salaam walaalayaal halka waxaynu isugu nimi inaan taageerno baaqi odayaasha 33 ahaa 14 isim iyo shacabkii Soomaaliyeed ee ka galooday maxaa la yiraahdaa caburinta iyo dilka iyo qaraxa iyo qaxa ka galooday dadkooda lagu xasuuqayay yani sida hoose lagu maartay lagu kharajinay ragoodii iyo dumarkoodii waxgaradkii reer Laascaanood haday SSC ay yihiin iyo haday kale ama sunha lagu dilo ama xabadha lagu dilo ama wadaad meel kale aaday laga daba diro shabaab oo hal dilo ama xildhibaan qaran hal lagu dilo magaala madaxda Soomaaliyeed hal lagu dilo wax loola haray dadka ma jiraan absolutely ma jiraan maalintii waxaan xasuustay Ethiopian ku xasuuqayeen xamar dadka ku xasuuqayeen Soomaali way kala xarin laakiin maanta waxaan u jeedaa inaan Soomaalinimo looga qayb gelin ninka musabixiya iyo afarta shanta la shaqeynaysa shacabkii Soomaaliyeed ku xasuuqaysa iyagoo calankii Soomaaliyeed sita ku xasuuqaysa in maxaa la yiraahdaa aan loo tagin dadkii qaxay oo maxaa la yiraahdaa aan laga daba tagin meelaha ay qaxeen oo aan laga warhaynin oo maxaa la yiraahdaa maalintii 15 mise 14 lagu garaacayo artillery lagu garaacayo magaaladii Laascaanood taamilan Soomaali ka yeeli karno ma aha aaway qarankii Soomaaliyeed ciidamadii loo tababaray Soomaali yahay shacabkooda iyo dalkooda iyo lidooda inay difaacaan aaway Xasan Sheekh muxuu uga tagi waayay shacab intaas leeg baa la xasuuqay intaasina waa dhaawac muxuu uga tagi waayay magaala madaxda maxaa la yiraahdaa gobolka Sool oo uu tagi waayay dadkiisa u soo arki waayay markuu diyaaradaha caalamka raacayo aaway Xamsa oo ku fadhiyay dadkan iyaga ah positionkoodii ku fadhiyay ma fiicna waa ku faraxsanahay inay hadleen xoogaan laakiin waa laga keenay ma aha mid iyagu ay dalbadeen ma aha maqlaysi waxaan u baahanahay marka rag iyo dumar inta halka fadhida inagoo Soomaaliya inagoo aan kala eexanayn dadka reer Somaliland ee reer gobolada waqooyi baan aniga dhaxaa laakiin waxa way Somaliland waa magacii gumaysiga weeye ma aha mid aan ogolaan karno waa mid dabada uu ka taagan yahay British oo laayay dadka reer SSC xasuuqay hore waxa xasuuqay oo diidan inay dadkaasi marna ay kala sameeyaan oo ay magtoodi weydiistaan xoolihii ka laayay dadkii ka laayay culimadii ee xoog maxaa la yiraahdaa sumeeyay ceelish ka sumeeyay haddana sidii baa socota ciidamadana isaga tareegareeyay aaraadiyo waxaan arkay waqadu uu u qoray ambassador Soomaaliyeed uu qoray oo uu leeyahay safaaradoodu qortay leeyihiin waxaan rabnaa ciidamadii dadka xasuuqi lahaa waasaas ciidamadii dadka xasuuqi lahaa aan Somaliland u tareegareynayna ogolaada aniga ma aan arkin jawaabtii Maxamed Ali America ma arkin waa Soomaaliya laakiin waxaan idin sheegayaa maanta ceelashii dadkii laga gooyay